caasim ibnu thaabit waxa uu ahaa saxaabigii ay shinnidu difaacday meydkiisa, waxa uuna ka mid ahaa asxaabtii ka qayb gashay dagaalkii Badar iyo Uxud. Sidoo kale wuxuu ka qayb galay dagaalkii beecadii caqabadii labaad. Intaan u sii gudagelin qisadayda, fadlan janaalka subscribe garee, gambaleelka furo si ay kuu soo gaaraan mar walbo aan soo gelino muuqaal barteeni YouTube. Mahadsanid. dagaalkii Uxud, caasim waxa uu ka dhigay wacdaro, waxa uuna dilay 2 nin oo walaalo ah. Uu dhalay Dalxa binu Dalxa, falaar ayuuna ku dilay. Hase ahaatee mid ka mid ah ayaa dhaawac ku baxsaday, waxa uuna galay magaalada Maka. Hooyadiis ayuu u tagay oo la dhihi jiray Sulaafa, waxayna ku tiri, yaa ku dilay? Markaasuu yidhi, caasim ibnu thaabit ayaana dilay aniga iyo walaalkeed. Aad bay u xanaaqday Sulaafa, waxa ayna ballan ku gashay inay caasim madaxiisa khamri ku cabi doonto. Qofkii u keenana waxay u ballan qaaday inay siin doonto 100 halaad oo geel ah. Maalin maalmaha ka mid ah waxaa u yimid nebiga sallallahu calayhi wasallam koox ka mid ah qabiilada loo yaqaano Cudal iyo Qaaram. Waxayna dhaheen, qabiiladeena waxay u baahan yihiin in la baro diinta Islaamka. Dad baa naga soo islaamay ee nagu dar saxaabadaada qaar ka mid ah. Nebiga sallallahu calayhi wasallam waxa uu ku daray 10 saxaabi oo hogaamiye u ahaa caasim ibnu thaabit, laakiin waxay ku sameeyeen khayaano. Ballantiina way uga baxeen. Shirqool ayay u maleegeen 10kii saxaabi, waxayna u tageen qabiilkii Hudaliyiinta. Waxay dhaheen, Muxamed saaxiibadiisa ayaan haynaa kaalaya. Kadibna iskuweer ayaa lagu qabtay. 10kii saxaabi buur ayay ka fuuleen, maadaama laga tiro badnaay. Waxaa lagu dhahay, isdhiiba ee ka soo dega buurta, ma idin dileeno. Balanbeen iyo dhaarbeen ayay u qaadeen, laakiin 3 ka mid ah ayaa amintay ballanta oo ka soo degatay buurta. Waxay dhaheen, waxaan idinka iibinaynaa Quraysh oo muslimiinta ay col ahaayeen. Hase ahaatee mid ka mid ah ayaa diiday oo dagaalamay, wayna dileen. 2dii kale Quraysh ayaa laga gaday, wayna dileen sidoo kale. Intii kale ee buurta ku hartay ayaa dagaalamay ilaa laga dilo. caasim ibnu thaabit ayaa ku soo haray keligiis oo dagaalamay ilaa ay ka dhammaatay falaartii. warankii uu ku dagaalamayna uu qalloocday. Markii uu xaqiiqsaday caasim in la dilaayo, waa uu ducaystay, waxa uuna yidhi, ilaahayow sidaan u difaacay diintaada gelinka hore, anigana u difaac jidhkayga gelinka dambe. oo markii aan dhinto meydkayga yay taabanin gaalada. ileen wuxuu ogaa in ballan lagu qaaday in madaxiisa lagu cabayo khamri, waana la dilay. Markii uu dhintay caasim ayay isku waafaqeen inay qoorta ka gooyaan, ay doontaan 100koodii halaad ay ballan qaaday habartii Quraysheed ee Sulaafa. Laakiin meydkii caasim waxaa ku soo xoomay isla markiiba shinni. Markaasay dhaheen, aan u nasano ilaa ay ka tagayso shinnidu. Hase ahaatee waxa uu Alla subxaanahu wa tacaala keenay roob. Kadibna roobkii ayaa qaaday. Markii ay soo laabteen ayay ka waayeen meeshii meydka, wayna niyajabeen iyaga oo dulaysan. Hase ahaatee culammada qaar waxay noo sheegaan inay meydkiisa ay duugeen malaa'igta, ileen qof bini'aadan oo duugtay ma jirin. Asxaabtana markii ay weydiiyeen rasuulka sallallahu calayhi wasallam, wuxuu ku dhahay, huwa fil janna, jannada ayuu galay. Cumar bin Khadaab radiyallahu canhu wuxuu yidhi, caasim binu thaabit maalintuu soo islaamay wuxuu ku dhaartay inuusan jidhkiisa taabanaynin gaal. caasim wuxuu ka mid ahaa geesiyaasha rasuulka sallallahu calayhi wasallamna wuxuu dhihi jiray, haloo dagaalamo sida caasim binu thaabit oo kale.